soo dhaw daawade maxaa ka soo kordhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wali halkaasi waxaa ka taagan xiisad u dhaxaysa ciidamada lagu magacaabo PSF iyo sidoo kale kuwa taabacsan maamulka Puntland. wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi gabi ahaanba uu hakad ku yimid shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. hakadkaas ayaana waxa uu sababay ama uu ka yimid isku dhac ama khilaaf ka taagan ciidamada sida gaarka u tababaran ee lagu magacaabo PSF iyo sidoo kale maamulka Puntland oo halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay isku hayay. hakadka ama isku dhaca ayaa wuxuu ka yimid kadib markii muran xoogan uu ka dhashay markii la sheegay in ciidamo ka tirsan ama amar ka soo baxay maamulka Puntland ee lagu diiday in garoonka ay hool ka qabtaan ama wax shaqo ay ka sameeyaan ciidamada PSF halkaasi si ay halkaasi ugu howlgalaan ama ay ka dhuufsadaan ciidamada ka dhaawacan si ay halkaasi ugu dhuufiyaan u gaarsiiyaan xarumaha kale ee caafimaadka dalka. ciidamada PSF ayaana ka biidiiday go'aanka ama amarka ka soo baxay maamulka Puntland oo ku sheegay inay tahay awood ay maamulka ay ku sheegteen ama ay kaga soo horjeedaan howlgalka ama ciidamada PSF. war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada sida gaarka u tababaran PSF ayaana waxay ku sheegeen in wax diyaaradaha uusan ka soo degi karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. ciidamada ayaana si gaar ah waxa ay ugu digeen diyaaradaha Dalo Ireland iyo sidoo kale Ethiopian Airlines in ay soo caga dhigtaan gudaha garoonka magaalada Boosaaso haddii ay jabiyaan amarka wixii ka yimaada ama cawaaqibka ka dhalan karta halkaasi ay mas'uuliyadda ay qaadayaan labada shirkadood. sidoo kale maamulka Puntland ayaa dhankooda amar soo saaray iyagoona sheegay in wax dhibaato ah aysan ka jirin gudaha garoonka magaalada Boosaaso walibana ay sheegeen in amarka ka soo baxay ciidamada PSF cidii u hoggaansanta ay talaabo ay ka qaadi doonaan dhankooda walibana ay sheegeen in haatan ay nabad tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin xarunta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. dhinaca kale war saddexaad ayaa ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan duulimaadka tagi jiray ama maanta tagi lahaa xarunta magaalada Boosaaso ee gobolkaasi Bari diyaaradihii Ethiopian Airlines sidoo kale Dalo Airlines walibana dowladda federaalka Soomaaliya ayaana kaga digtay diyaaradahaasi in ay gaaraan magaalada Boosaaso maadaama halkaas uu ka jiro shaqaaqo ama isku dhac labada dhinac ciidamada PSF iyo sidoo kale kuwa maamulka Puntland. Puntland ayaana sheegtay ama diyaaradahaasi ama shirkadahaasi u sheegtay in haddii ay qaataan amarka dowladda Soomaaliya ee ciidamada PSF aysan marnaba ay ka soo degi karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe haddii ay diidaan inay ka soo degtaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso maadaama ay Puntland ay ku andacoonayso in aysan wax shaqaaqo aysan ka jirin gudaha garoonka magaalada Boosaaso. shirkadaha diyaaradaha Dalo Ireland iyo sidoo kale Ethiopian Airlines iyo kuwa kaleba ayaa haatan wajahaya caqabado dhowr jiha walibana kaga imaanaya dhinacyada isheeya haddii ahaan leed PSF iyo Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. labada dhinac ayaana haatan isku hayay ama isku qabtay isticmaalka garoonka diyaaradaha Boosaaso kadib markii ciidamada sida gaarka u tababaran PSF ay sheegeen in laga hor istaagay in askar ka tirsan ciidamadooda dhaawacyo ay halkaasi ay rabeen in ay ka dhoofiyaan. intaasi kadibna taliska ciidanka PSF ayaa soo saaray hanjabaad culus oo ugu digaya shacabka degan agagaarka garoonka diyaaradaha in ay halkaasi isaga baxaan maadaama mar walba la filan karo isku dhac ka dhaca labada dhinac ee ciidamada PSF iyo sidoo kale kuwa Puntland. shaqada joogsatay ayaana sidoo kale ka timid kadib markii xalay ee PSF ku celisay mar kale digniinteedii hore ee u soo saartay iyadoo intaasi ku dartay in aanu wali xal rasmi ah laga gaarin arinta garoonka ayna u digtay shacabka iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadka. taa bedelkeeda Puntland ayaa sheegtay in haatan xal laga gaaray wax khilaaf uusan ka dhaxinin arinta shaqaaqada ah ama muranka dhaliyay ee u dhaxeeya PSF iyo ciidamada Puntland ama maamulka Puntland taabacsan ee halkaasi isku haya. ilaa ay haatan ma jira war si madax banaan ah loo xaqiijin karo in xal laga gaaray isku dhaca labada dhinac ee ay ku andacoonayso maamulka Puntland sidoo kale ciidamada PSF ay sheegayaan in wali xal laga gaarin